Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Kusoo dhawaada mar kale iyo janalkeena. Haddii aad nagu cusub tahay, fadlan subscribe inoo saar, sidoo kale gambaleelka furo si aad u noqoto daawadaha ugu horreeya helaya muuqaalada halkan aan kusoo gudbinno. Muuqaalka maanta waxaan ku eegi doonaa 8 cunto oo laga helo vitamin D-ga. Maadada vitamin D-ga waynu ognahay inay tahay maado saameyn weyn ku leh jirkeena, gaar ahaan caafimaadka lafaha. Sida ay sheegayaan cilmi baarayaashu, heerarka hoose ee vitamin D-ga waxay khatar ugu yihiin cudurrada kala duwan ee loo yaqaano autoimmune diseases. Vitamin D waa nafaqo uu jirka soo saaro marka uu qoraxda toos u helo. Waxaa kaloo laga heli karaa cuntooyin kala duwan, inkasta oo aanay inta badan ku jirin qadar badan. Nafaqa yari gaar ahaan deficiency-ga ayaa sababi kara in waxyaabaha ugu badan ee vitamin D la'aantu ay keento, gaar ahaan dadka gabowga ama waayeelka, taasoo keenta cudurrada lafaha sida cudurka loo yaqaano osteoporosis. Sidaa daraaddeed, waxaa muhiim ah in la ogaado cuntooyinka ay ku badan yihiin vitamin D-ga. Halkan ayaynu kugu soo gudbin doonaa 8 cunto si aad uga faa'iido, bal haddii ay jiraan siyaabo kale oo aad ku heli karto vitamin D-ga, ama haddii aad tahay qof markaasi waddanka uu ku nool yahay aanu qorax badan lahayn ama cadceeddu aysan halkaasi aad uga jirin. Ugu horreyn, haddii aan ku bilowno, geedka mushroom-ka loo yaqaano waa isha keliya ee aan markaasi xoolaha ka imaanin ee bixiya vitamin D-ga. Marka qoraxda lala bardhigo, mushroom-ka wuxuu soo saari karaa vitamin D sida bini'aadamka oo kale. Haddaba geedkan waxaa lagu kobcin karaa baa laleeyahay vitamin D-ga haddii la dhigo qoraxda qiyaastii 20 daqiiqo. Haddaba geedkan mushroom-ka wuxuu soo saaraa vitamin D2, halka xooluhu ay soo saaraan vitamin D3. Inkastoo D2-ga uu kordhiyo heerarka vitamin D-ga ee dhiigga, D3 ayaa waxtar badan. Noocyada kala duwan sida noocyada markaasi mushroom-ka waxay leeyihiin qadar kale oo kala duwan oo laga helo vitamin D-ga. Haddaba nooc ka mid ah kalluunka salmon-ka loo yaqaano, kalluunka dufanka leh ayaa guud ahaan ku badan baa laleeyahay maadada vitamin D-ga marka loo eego kalluunka khafiifka. Salmon-ka waa kalluun caan oo ku badan vitamin D. Heerarka nafaqadiisa waa ay kala duwanaan karaan iyadoo ay ku xiran yihiin haddii uu yahay salmon markaasi isagu beeraysan, ama salmonka duurka waxa uu caadiyan leeyahay vitamin D-ga. Sidoo kale waxay ku xidhan tahay meesha iyo xilliga lagu qabto. Isla nooc ka mid ah markaasi kalluunada tuna, dad badan ayaa jecel markaasi gasaca kalluunka gasacaysan, sababtoo ah dhadhanka iyo sidoo kale haddii ay noqon lahayd fudeedka iyo qiimaha oo mararka qaar la sheegayo inuu aad u qiimo jaban yahay. Inkastoo ay jiraan waxyaabo badan oo dadku ay ka faafiyeen kalluunka markaasi gasaca ku jiro. Haddaba kalluunkan gasacaysan waxaa laga sameeyey kalluun yar, waxaana ku yar ballaya mercury marka loo eego kalluunka cad tuna white-ka loo yaqaano. Badbaado ahaan, waxaad doorataa maadada markaasi mercury-ga ay ku yar tahay ee khafiifka, isla markaana si aad uga hesho waxyaabo kala duwan. Isla kalluunada ayaan eegaynaa, waxaa jira kalluun kale oo aad ugu badan nafaqadan, isla markaana borotiinno iyo faytamiino iyo macdano kala duwan ay ka buuxaan maadaama ay cunaan plankton. Haddaba sardines ayaa la yiraahdaa kalluunkan. Ma uriyaan sunta culus sida kalluunka weyn, taasoo ka dhigaysa mid ka mid ah kalluunada ugu nadiifsan. Waxaa laga helaa markaasi inta badan iyagoo gasacaysan ayaa la helaa, waana isha jaban ee vitamin D-ga. Ukunta qaybta jaalaha ee egg yolks-ka loo yaqaano waa qaybta ugu muhiim badan ee laga helo borotiinno tiro badan. Vitamin D-ga keliya lagama helo kalluunka. Ukunta ayaa sidoo kale ah isha vitamin D-ga ay ku badan yihiin. Inkastoo vitamin D-ga uu ku jiro qaybta yolk-ta, haddana ukunta gebi ahaanba waxa ay leedahay ama inta badan ay xambaarsan tahay maadooyin tiro badan oo caafimaad u ah jirka iyo wadnaha. Haddaba qaybta caddaanka uu ku badan yahay ukunta, borotiinka ayaa ku badan, halka jaalaha ay ku jiraan dufanka, faytamiinada iyo macdanta. Heerarka vitamin D-ga ee ukunta waxay ku xidhan yihiin waxa digaaga la siiyo, heerka qoraxda ay helaan. Digaaga duurka ku jira ama ukunta si gaar ah markaasi loogu calaamadeeyey in ay ku badan tahay vitamin D-ga ayaa bixiya nafaqo tiro badan. Waxaa kaloo jirta cheese-ka, isaguna waxaa leeyahay waxaa ku jira vitamin D, calcium iyo vitamin K, kuwa oo dhammaan iskaashadooda ka qayb qaata lafaha kana dhiga kuwa caafimaad qaba. Waxaana si fudud looga heli karaa iyagoo markaasi lagu darayo saladka, iyadoo lagu darayo khudaarta ama rootiga la dubay,
inta waa loo isticmaali karaa cheese-ka. Cuntooyinka kale ee laga helo ama hodanka ku ah waa hilibka, kalluunka iyo hilibka caadiga ah ee xoolaha, gaar ahaan hilibka geela, ariga. Cuntooyin badan ayaa laga helaa vitamin D-ga, tusaale ahaan caanaha lo'da, caanaha soyga, liinta ama cabitaanka casiirka liin bambeelmada, iyo sidoo kale mishaarida oatmeal-ka. In aad cuntada ku darto waxay fududaanaysaa in aad buuxiso baahida maalinlaha ee jirkaaga u baahan yahay, gaar ahaan heerka nafaqada. Saliidda beer kalluunka loo yaqaano waa kabsar caan ah oo bixiya vitamin D badan, waana gaar ahaan waxay waxtar u leeyihiin dadka aan jeclayn kalluun cunista. Waxaa kale oo ku jira vitamin A iyo sidoo kale omega 3 oo leh faa'iidooyinka muhiimka. Haddii aad neceb tahay dhadhanka, waxaa laga heli karaa qaabab kale oo aad ku soo gadan karto. Waa cod liver oil, inta waad heli kartaa. Calaamadaha dadka uu ku yaryahay vitamin D-ga, calaamadaha waxaa ka mid ah daal joogto ah iyo tamar la'aan, murqo iyo lafa xanuun, gaar ahaan dhabarka iyo lafaha lugaha, lafaha oo jilicsanaadaan si fudud u jajabaan, dadka da'da rickets-ka oo dhinaca carruurta inta badan luguhu ay qalloocmaan, caabuq soo noqnoqda sababtoo difaaca jirka oo daciif ah, madax xanuun iyo murqaha oo tabar darri laga dareemayo, hurdo la'aan ama hurdada oo aan hagaagsanayn, ilkaha oo markaasi dhiig ka soo inta badan ka yimaado, gaar ahaan carruurta, iyo calaamado kale. Sida looga helo qoraxda vitamin D-ga. Qoraxda waa isha ugu weyn jirka ee bini'aadamka uu ku tiirsan yahay, gaar ahaan vitamin D-ga. Marka qaarkood si toos ah haddii uu u taabto jirka, iftiinka qoraxda waxa uu markiiba helayaa oo gudaha u dhaadhacaya baa leeyahay heerka vitamin D-ga loo baahan yahay. Dadka badankood waxay u baahan yihiin 10 ilaa 30 daqiiqo qoraxeed, taasoo maalintii 2 ilaa 3 jeer usbuucii, iyadoo ay ku xiran tahay halka uu qofka joogay cimilada halkaasi ka jirta. Midabka maqaarka madow waxay u baahan yihiin qoraxda badan. Da'da dadka waayeelka waxay u badan yihiin qorax tiro badan. Goobta aad ku nooshahay iyo xilliga sanadka, gaar ahaan qabowga iyo sidoo kale jilaalka, ayaa inta badan laga helaa qoraxda. Waxaa muhiim ah in qoraxda la helo subaxii ama galabtii, iyadoo aan la isticmaalin kareenka qoraxda sunscreen-ka inta lagu guda jiro daqiiqadahaasi kooban ee qofka uu qoraxda qaadanayo. Waxaa kaloo lagu helaa cuntooyinka ku badan vitamin D-ga, kalluunka dufanka leh, ukunta, iyo sidoo kale waxyaabihii aan ka soo hadalnay haddii ay noqon lahayd mushroom-ka iyo geedkaasi, iyo sidoo kale cuntooyinka la xoojiyey ee fortified-ka loo yaqaano. Waxyaabaha vitamin D-ga laga helo waxaa ka mid ah saladhka iyo kabsarada. Haddii carruurtu aysan helin vitamin D, gaar ahaan carruurta yaryarka, lafahooda ayaa jilicsan kara ama noqon karaan kuwo jilicsan oo aan si fiican u korin, waxaana ugu dambeyn ku dhici kara cudurka rickets-ka. Waxaa ku dhici kara luguhu inay qalloocmaan, bow legs iyo lafo jilicsan, koriinka jirka iyo ilkaha oo dib u dhac ku yimaado, difaaca jirka oo daciifa. Carruurtuna waxay u nuglaadaan caabuqyo soo noqnoqda. Mustaqbalka waxay halis ugu yeeshaan lafahooda in ay noqdaan kuwo aad u jilicsan. Supplement-yada Soomaalidu waayadan dambe ay aad u isticmaalaan ayaa inta badan laga helaa. Haddii aadan helin qorax ku filan, ama dal qabow, ama qofka inta badan ku nool guriga, gaar ahaan meelaha hooska inta badan jooga ama harsada, waxa ay isticmaali karaan kaabyadan vitamin D-ga. Cuntada aysan hodan ku ahayn vitamin D-ga, dhakhtarka haddii uu kuu sheego in heerka vitamin D-gaagu aad u hooseeyo, qiyaasta caadiga ee dadka weyn waa qiyaasta 8 oo 600 ilaa 800 IU maalintii, waxaa lagu qiyaasaa dhakhtar. Mararka qaar dadka leh yaraanta daran waxaa loo qoraa qiyaaso ka sarreeya. Digniin: inta badan vitamin D-ga overdose-ka wuxuu sababi karaa dhibaatooyin sida calcium-ka oo tiro badan oo dhiigga ku ururo, kelyaha oo dib u dhac ku yimaado, madax xanuun joogto ah. Sidaa daraaddeed, waa in dhakhtarka uu kormeer caafimadeed ku sameeyaa qofka marka uu isticmaalayo. Haweenka uurka leh iyo vitamin D-ga. Haweenka uurka leh si gaar ah ayay ugu baahan yihiin vitamin D-ga, sababtoo ah waxay ka caawisaa lafaha iyo ilkaha ilmaha uurka ku jira si uu si wanaagsan ugu koro. Waxay yareysaa halista uurleyda ay la kulmaan lafaha jilicsan, murqaha daciifka. Cilmi baaristu waxay muujisay in yaraanta vitamin D-ga ay kordhiso halista uurleyda ku dhacdo cadaadiska dhiigga oo sarreeya, in dhalmada xilli hore preterm birth ama premature birth, in qofka 6 bilood ama 7 bilood isagoo jooga ilmaha laga soo saaro, ilmaha oo miisaan hoose ku dhasho, iyo waxyaabo badan. Sidaa daraaddeed, dhakhaatiirtu badanaa waxa ay kugula talinayaan in haweenka uurka leh ay qaataan supplement-yada vitamin D-ga. Qiyaasta lagula taliyo inta badan 600 ilaa 1000 IU maalintii, laakiin dhakhtarka ayaa go'aaminaya
iyadoo ay ku xiran tahay xaaladda qofka uu ku sugan yahay. Guud ahaan inta ayaan ku soo xidhayaa muuqaalkayaga maanta. Subscribe inoo saar channelkan, like garee la wadaaga asxaabtaada, qaybta commentiga iyo gambaleelka intaba waad furan kartaa. Commentigana aragtidaada waad noogu reebi kartaa. Waad mahadsantahay.